السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين أممنا أو عاوة إذين وضو قبلها إسو ديارنا يا أروسكا يا قبلها ولقود بأروسكا ما شاء الله تبارك الله يا ما شاء الله تبارك الله إن حتى با إن شيئا إن عاوة إذن لو ذاقايو ما شاء الله تبارك الله waa shayaal aad caam ah oo aan wada taqaanaan isla mar ahaantaasna kor u qaadayo dhalaalka gabadha muslimadda ah wuxuu ka kooban yahay ukunta shaharkeeda maxaa la yiraahdaa maasha Allah tabaarakallah 3 xabo oo timir ah qaado ah yogurt plain ama yogurta mataqaanaa aan waxba ku jirin ah ما شاء الله هرود قادة هرود هل قادة أو ملب إيو قادة أفكيدة أو ما شاء الله تبارك الله سليد زيتون intaas ayaad mataqaanaa isku daraysaa oo ukunta iyo maxaa la yiraahdaa timirta oo marka horeeto ku shiidaysid yogurta iyo timirta isku shiid qodobka koowaad ka bacdi hadii aad haysato huruuda organiga ah oo qoyan hadii aad haysatana timirta iyo yogurka iyo huruudka isku shiid malabka iyana waxay u noqonayaan kulligood mataqaanaa liquid biyo u noqonayaan wax biyo ah ku taabanin inay adkaataa la rabaa oo biyaheeda ay ahaadaan malabka yogurka iyo saliida ayaa mataqaanaa huruuda noocan ah biyo u ah iyo ukunta intaba mataqaanaa marka aad isku shiidid waxa ku soo baxaya kareem yar oo face mask ah oo dhagan ma sha Allah tabaarakallah marso waxa kareemkan hadaba waxa marsan kartaa maalin walba ayaa marsan kartaa life-kaaga hadii aad awoodid wax side effect ana kuma mataqaanaa geysanayo biidnillaahi baari hadii aad ukunta aad si kale allergy aad ugu tahay bal marka hore meel yar oo wajigaaga kamid ah ku tijaabi laakiin sida mataqaanaa caamka ah ما شاء الله تبارك الله maxaa la yiraahdaa ashiyaadan la isku daray wajiga waxay ka dhigaan qurux iyo dhalaal waxayna siiyaan midab zaid ah ayay siiyaan marka ma sha Allah sidii mataqaanaa si aad iyo aad u qurux badan buu wajigaaga muddo gaaban ugu soo baxaya wax side effect ana malaha waa alaab gurigaaga wada taalo ha u deyma la'aanin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh